أنا ودي سبك كجرا لمبر دبدة لمبر كي أنتوا سووا عنو يسوع در ما سد سأوجدان السلام عليكم قرن ميديا بيسوع قرن أنت أنا أجوا بمسمر كي لمبر كي أردايا ويسوع عباك قبت هلا السلام عليكم بيجي وعليكم السلام وحي ولا قرن ميديا سماها waxaan ku yiri niyo waxaan daawanay dad duruufaysan oo xaalado kala duwan haysta in aad soo duubtay oo soo gelisay bogga qardho media marka waxaan rabnaa walaalow waxaan haybiir horta ma garanaysaa buu yiri saasaan fiiriyay sawirkii marka sawir baa u saaran saanini anu kuma garanayo intuu isla markii jaray wuxuu yiri waa xildhibaan ka tirsan Minnesota Soomaalidina inta badan Ilhaan Cumar baa taqaaneen tag waa ugu jaray sabkii wuxuu ii soo diray muuqaalada halkan ka daawanaysan dabcan ninkaas odayga ah in Jamaal Usmaan dhamaan rajeynaya sidoo uu sheegay ama uu ku qaraamanay wax xildhibaan Minnesota ka tirsan baan rajeynaya ama filaya muuqaalkan ii soo diray iyo qaraalkaas waa Jamaal Usmaan isla sikii markuu muuqaalku ii soo dhacay buu soo wacay niyo ma igaratay Jamaal Usmaan baa dhahaa xildhibaan Minnesota ka tirsan baan ahay niyo marka anagoo niman dhalinyaro ah oo aqoon-yahana oo dibadda joogna baa waxa isku soo darnay bustayaal 150 buste oo qaali ah oo dadka dhaxanta ay ka wadaan konton gaari oo gawaarida curyaanada ah ayaan soo ganay lacag $2,000 oo cadaan ah waxaan soo dhignay bangiga Salaam Bank iyo dawooyin aad fara badan baan soo ururinay naabtaas Hargeysa shalay ka soo degtay gaari raaxa kuri baan soo kireen sheekadaan idinku akhrinayo والله أنا كلمنا كدرين كلمنا كرهبة سوني كاس إلى حلي بنشكل أصوره قال راح جروب عن صوص صارني أرجيس وكسر بحي دنقريو هذا جاري وكحماد دنقريو كحماد مركب عرنا فانتاستيك وعرفت عليهم كوسو جنة عادي واتاح رنايت مركب صودين تاد مقالنا من برنامج كان هرجيس اللي جسوا دجي مركب واكاس نمان يرى أبا وده ويلي جبر حد عن لمبر خود كوسو درايا la xiriir hawsha la fuzay alaabta la soo wareeg qardakeen qaybi oo waxaan ku kaarnaa dad u qalma in alaabtaas soo hadii uryaanada aan lahayd hadii bustayaasha aan lahayd hadii dawooyinka hadii lacagta aan lahayd nin aanu ku tumeyna baa tahay kalsooni nooca waxaan santay baa ku alaabtaas ay tahay baan dadka u gaarsiin doonaa meediyaha ka daawan doontaan adduunka maanta qof kasta adduunka meediyaha soo socdaayo halkaas ka akraya barnaamij ka daawanay هاي اللمبر كان خوسو درايو وحو يسو دراي لمبر كان وجدان ودبدا ودكتور عبد الكريم هبل بوايه يا لمبر كان وقويغا اسلمبر waxaan xareystay lambarkii dibadaan xareystay magacaasan ku soo qortay maada wasaq markay qof ka saraasin magaca ku qorto ay muhiim tahay walaal baan ku qortay saawdaawanaysan waaw wuxuu inuu ha fantastic hadda doctor xilibaanku noo ka sheegayay dan goraya gaari nagaga jabay $200 baan gaariga ku soo kireysanay gaarigii wuu kala jiireeyay hadda wuu jamay dan goroyo yaala gaari kale aan soo kireysanay lacag $200 la rabaa lacag sahalana ma wadano lacag dollar ma wadano anaga bangiga lacag noogu jira sida Salaam Bank iyo Amal iyo bay noogu jiraan lacag marka waxaan rabnaa in saaxiib $200 soo didid oo gaariga kirada ah gaariga aan soo raacayno hadda soo kireysanayna qardaan ka siinana birswax waa nin la yaqaano oo waana yeela birswax lacag naga yeela وني مساسها حالد way ugu abirsatay $200 aniga markaa ma hayo wali sheekada run baan u haystaa niman odayaal muxtarimiina baan u haystaa anoo isla markii sikinkii waxa soo wacay xildhibaankii isku sheegay markaa sawir baa u saarnaa ninka odayga muuqaalkiisa daawatan sawirkiisa u saarnaa alaabta ma la wareegteen lacagta ma didhay waa kan niyo kiraal rabaa waxaaniyo waa xilli dambe waa 6 marxanimo iyo bar meel ma furna maxaan sameeyaa adigu waxbaan warwareegay waa meel wax ka socdaan horta lacagti ma raadin oo xoog iska ma saarno dad ma wacwicin laakiin markasta wax ku maqanahay waan leeyahay khad baan iskaga mashquulsanaa ma raadin lacagti haddaan $200 haysto marka hore dhashay ka run baan haysto waa diri lahaa war saaxiib yar muuqaalka ay share garay war waa dignin Soomaalidaas aan digayno dad hore la dhacay adeerkii baad ugu sameeyay sheekada $400 baa habeen la yiri waa ku soo dirnay lacagta noo soo celi Facebook marka maanta ku soo qoray dad badan baa waa soo wiceen waa i dhicin kaay warniyo Soomaali waa digniina muuqaalka share garay
suudad badan oo loo dhici lahaa sheekada tan uga badbaato dadka tuugada ayo khiyaanlowinta ay meel ka kala muuqaalka waa daawanayaan aan u kashifno dad badan bay dhaceen fantastic markay u soo dhaceen oo soo waceen bay risaaqadooda iska soo xireen ma oga miya inuu leefka qardhamidii u soo fiirsanay waa yahay aduu nimanka aad habeenkii soo wacay markay waxay dhaniyo $100 baan helnay $100 baan ka dhiman walifu baan ugu haystaa laba qof aan wacay oo wallahi oo billahi wa tallahi waxaan is laba dhaqof dhalinyaro baan wacay bal inaan lacagta ka qaado labadiiba midna waa dasna midna waa iga qaban waay adigu aad bay isoo wacayaan kanu markuu ka baxo xilimaan isku sheega waxa soo galay kan karo doctorka ayo dan goroyaan jooga sheeganayo alaab baan wadnaa dhahaya wali daacad baan ugu haystaa goortu xilimaanku iga baxo kan kala soo wacay buu lacagti ma heshay lacagti ma soo did lacagti ma soo did sin wuxuu ilaahay bilaatil ma weeyde niyo waa ka xumay kii xilimaanka wuxuu inuu lacagtaas shaqada hadda ka baxaya $200 ana hadda waxaan kugu soo degayaa taaska lambarkaaga ii soo dir waa kan lambarkayga waan ku yeedhay hadda iga hadlaysay igu soo dir adigu lixdii wicitaan say ugu bilaabeen 2 saac oo habeen ma ila gaartay hadda waxaan warniyow ma iska seexataan dan goroyo lacagta birtu waxaan bixinayna alaabteena soo raranayna ma yaniyow meeshan ma fahmeen waa meel yar oo hoteeladu waa ku yar yihiin warniyo anigu mayni imaadaayo gaariga ma soo daminta ama telefoon gaariga igu dhiiba birtu waxa u direynaa war ma yaniyow ninku yeeli maayo alaabta hadii kala barnaga qaadanaya kan xilimaanka sheeganaya Minnesota ka soo hadlayana waxa uu kolay ninka waa lagu been abuurtay ninka ma aha kama suurtooda saar filaayo asaga waxaan daawanaya muuqaaladiisa iyo sawiradiisa lagu qaraabanaya haduu muuqaalka daawado xilimaanka ninka dhaho Jamaal Usmaan in uu damcan soo hadlo muuqaalka sheer gareeyo agaarsiisa marjinay aad buu alaabta ugu walwalay alaabtan waa alaab qaali waa bustiyaal qaali lacag badan baan ka soo bixinay kuraasta gawaarida qoriyanada guriya gawaari qaali war fantastic oo saaxib lacagta si degdeg u dir wariya in ku daaline 2 saac habeen markii gaadhay saa aragtaan wali 2 saac buu i wacaya baas wacayna marmar baan xadid aan ka mashquulay aan ka qabanayn 2 saac markii gaadhay waxaan ku niyahow shir baan gelayaa hadii lacagna waayay maxaynu sameynaa okay buu yiri iska dhaaf saaxiib macaan ana raadsanay waxa kamid ah sheekooyinku ninka igu yiri intaan iswac wacaynay niyo gudoomiyaha degmada ma wacay mar xataa waxa jiray dheheniyo $60 baa naga dhiman 40 waa hel waxa igu siyaa badneed oo ilaahay mahadiis $40 baa sahalkayga igu jiray markuu yiri $30 baa naga dhiman fantastic oo 60 kala 70 kala waayay war 30 ma miyaa weeydi adiga meeshan kugu jirin qof saaxiibka weeydi qof ila joogo saaxiibkay waxaan kurniyo $40 baa igu jiray 30 baa u diray marka taleefanka la soo baxay dama inaan diro aan dhin xagee ku dira baa ninka wuxuu warniyo waa markii shakigu galay nimankan dad horey ba saa u dhicin waa tuuga dhici ka dhee 30 kaaga war ha iska dirin waayay anu aan lacagtii dirin baan iska daayay markii $30 baan iga dhigay war fantastic $30 noo soo dir bisaan hadba qof wacayna hadba qof 70 noo soo diray qof 20 noo soo diray qof 30 noo soo diray lacagtii hadda $30 baa dhiman ana $40 baa saalkay ku jira horta madan ilaahay ma had iskale marka waxaan gabagabadii horta muuqaalka saaxiibaya share gareysaan hore idin ku sheegay boggeyga follow iyo like soo dhaha commentigana soo dhiibta youtube kan subscribe u soo saara waxaan inaan sheegada soo gabagabeeyo horta qisada tan dadkan baraha bulshada ku qaraabta oo dhaha waxbaan ku haynaa maalin dhaweyd waxa dhacday maama waxaan ka dubay barnaamij xanuunsan maamadii waliba inta jilicsan ba qofka laga soo galaya maamadii waxay tiriniyo gaari curiyaan baa u baahanahay aan ku danaysto waxaan u baahanahay joodariyo markaan facebook soo galiyay baa maamadii soo wacay waxa la imaam waxaan ku soo iibinay gawaari curiyaan ashan joodari adii ehelkaaga ku seexataan waxay tiri dharka ma dhaqan karo bay tiri waxaan ku soo gadnay tiri qasaalad hargeysa alaabtaas taala hadaan qadna $150 gaariga lagu soo saaro soo dir maamadi baa soo wacday maamo alaaba la sheegay hargeysa taala $150 baa iga dhiman sahalka hadda waxba igu soo dhacday madri aqaaniye gabadhii kula socotay ii soo dir hayga dhigay waa gabar la socotay barnaamijka ila diyaarinaysay oo maamadan iskanay war maamo waxaan ku waa tuugo dadkay dhacaane gabadhii baan la hadlay waxaan ku war maamadii la hadlay gabadhii baa war waa tuugo anay hadda koor ugu dayeen oo dhan alaabaan ku soo dhibeen
ودتك قريامنا أي دتك الدنيا طاي دتك فقيرة أي دتك سيدنا كانوا كقرابتان قصير برهنا أيضا كديو نينك صاحبك ما أنت يجي شيكي دتنا ما أنت سووا قصوين كلا دول يجي شيكي نينك لو صاحبك داعد باوي يجري أنا جوجا إن أوفين بانقف حنو سماح كدوي برنامج نين يجري الماء أرجع كلا بان هيستا دتك يقول لي فيسبوك مكسوق قال بان نينك لا سو خيرين بو وربحين كسو ديار أبيه بهادلي هل سو عاوي لمبرك بوس كسو قري إسلام بسوا وعلي تري waxaan joogaa Muqdisho waxay tiri waxaan iyo sadaqo ula baxaya gaari hoomeya ama bas waxaan ku sadaqaystay wiilkaaga wiilashaada kan wax bartaan ku sadaqaystay lambarkaas wac ninkaas ku soo dhiibay dabcan waa dad is ogo laba ah sida hadda aniga laba ii soo wacday dabcan waa laba is og ninkii odaygu waa adeerow ninkii gaariga laga reebay hoomeyga soo maaha wuxuu yiri haa waa anigi lacag waxa soo didaa $600 oo jidka lagu soo marsiyo Muqdisho ila Puntland oo feen adeero $600 miyana awooda adeero dadka marka dhibtan ku dhacday nimanka tuugta oo burcada oo Facebook wareegaysa waa 100 qof intiina hadda daawanaysa inay ku dhacday reer baad Facebook waxaan soo gashay sheekada waxaan ku yiri mar dhow qarn media la socda dad badan oo comment ka bixiyay dad luuq igala soo hadlay warwaana dhaceen warwaana gaadeen wixii alaab baan ku soo gadnay cashuurtii baa loo haystaa waa $200 alaabtan waa alaab qaaliya qofkii war rumaysanay marka tuugadaas waxaan leeyahay war dadka waa dhacdeen tuugaatin nili ogaa hada saddex lambar aniga soo wacay intaan xirnaawo mid soo wacay saa aragtaan waa saddex lambar laba waa labadii soo dhiibisay minna marka sawirradii waxay ka dejiyeen profile-kooda hada laba oo da aragtaan waa bila sawir mid ka midana profile-kiisa waa ka gaar screenshot baan ka qaaday fiiri cid u saaran hadaad garanaysaan nin cadaana iyo ninka dhan yar Soomaaliya muuqaalka si share gareeya baraha bulshada tuugada ku jira ayaan ku jafaynay like iyo comment-ga aad u soo badiya muuqaalkan views-kiisa iyo share-kiisa waa